madaxweynaha shanaad ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale madaxweynaha ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici ayaa waxaa hambalyo iyo bogaadin u diray odayaasha cuqaasha waxgaradka ku dhaqan magaalada Gaarisa iyagoona Ilaahay uga baryay inuu Ilaahay ka dhigo labada madaxweyne kuwii ku hogaamiyay wadada horumarka Somaliland odayaashan iyo cuqaashan u diriyay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka hambalyada iyo ducada iskugu jirta ayaa waxa isagoo halkaasi kala qayb qaatay Suldaanka Beesha Ciise ee Mamaasan Suldaan Xuseen Cali Duule isagoona halkaasi ka soo jeediyay duco iyo hambalyo u dirayo madaxweynaha cusub ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici odayaashii gandaha oo wali sidii u fadhiya suurta galiyana waxay u fadhiyeen ahay oo ku hambalyeynaya xukuumadda cusub Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa xukuumadda cusubna taageero siinaya waxaan kaloo halka tanad uga diraya iyo hambalyo madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Saylici waxa weey iyagana wadducaan u garanay waan hambalyeynaa waxa Ilaahay waxaan uga baryaynaa inay noqdaan kuwii barwaaqo iyo bashbash ummadda maaragtay Ilaahay uga aqbalo xilka ay maanta ummaddu ay saartayna Ilaahay la qabto mudanayaal halkaan joogni waa Gaarisa وكم من الجمهورية الصومالية خاصة هان دقمة لوكيا مقالة جارسة ها وحن هبلينا مدحوينها يوم مدحوينا كحجيل كعصب on هذا البلد كقلي ما قرينا إنه وحن قلي عن هذا البلد كقلي إلهي نقول لي on إلهي كم حذنا إنه هبلي يبان لنا هاي ها موسى بيحي عبدي يو عبد الرحمن سيدعي والدلال بدل ما يجي سوق الليل أنا لقبت أنا بقارن ما نسعب كيجي إلهي بقى أنا لقبت ها وحن إلهي كرجينا كوي عن كورينه وحي عن سويني إن تبني عن كهل إلهي نوكينيو إن بيان بس سبناي سومال لانو كان بيجلين بقرعة جارسات مدع مانت عن كوهلا لي أون تاجر سيناي Somaliland وان كان بيجرين يعني كهذا لي إن كالصوني ليلا بيرش قرن كأ أنسيني إلهي بنا لقبتي وان حبليينا أنا كفر أحسن لبنا إذا قربنا الجوجان دقيقي جندا بيرش وأسمع ليس صدق بلوك فدي يقول عجالسات ما أنت النتيجة دي كل كهلان يكو فرح سين ويكون معنا قيان إلى هوجي إني قال إني هم بليانية سلطانكي إياه قدومي بكوريين وأنا هم بلياني لكوا كله ماتا كتنا سلي ماتا لقاه لينا يجا قدروا ذا هم بلياني نادي موسى بيحي عبد باو مدحوينا مات أو أبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد ارتوحا سلام يا جندها إياق وهدال إلى أصحابك فضلا حلكم المناسبة شرفت الفضلا يا سلام يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام سلام كدب وحن هلكن كسلام يا أنا ومقعي بيل حسن عوال لا إله وجوجا dooxada Gaarisa oo kamida degmada Luqaya ama gobolka Sal waxaan halkan ka salaameynaa madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici gabagabada ayaa waxa isagoo halkaasi ka hadlay barasaabka hore gobolka Sal Farxaan Xasan Cabdi isagoona sheegay inay farxad weyn u tahay guusha madaxweynaha cusub ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici waxa maanta ii farxada inaan kala soo qayb galo on horena wala soo qayb galay taageeradii ay 3 bilood ka hor gandaha amba uqaasha iyo salaadiinta halkan joogtaa ay u muujiyeen xisbiga kulmiye oo maantana muujinaya hambalyadii farxad aad u weyn bay tahay inaan kala soo qayb galo anigoo kamida siyaasiyiintoodii waxaan kaloon halkan hambalyo iyo duco iyo bogaadin uga soo jeedinayaa madaxweynaha cusub
ee shacabku doorteen ee shacabka Soomaaliland cod majority ku soo saareen mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici وعلي أحمد ديريا وركا أريال TV مقالة سيلع.